يقولو بالخير وياروسو بربركوركو هشيسا بلانتي كدبايسي kulanti wacan daawadayaasha ku xiran janalkan Shabeellaha TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa Ilhaan Cumar oo codsi la yaab leh ka codsatay Yuusuf Garaad. maxay tahay codsigan ay ka codsatay Ilhaan Cumar Yuusuf Garaad? inta aanan ku bilaabin barnaamijka daawada haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janalkan Shabeellaha TV, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe saarato furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan halkan ku soo baahiyo. Yuusuf Garaad ayaa shaaciyay arooska Ilhaan Cumar iyo seegeeda cusub in uu dhawaan ka dhici doono dalka Mareykanka. xafladda munaasabadda arooska Ilhaan Cumar iyo ninkeeda Ameerikaanka ah waxaa shaaciyay daahana ka qaaday xilliga ay dhici doonto saxafi ahna siyaasi Yuusuf Garaad xilli ay casho sharaf wada qaadanayeen xildhibaanad Ilhaan Cumar, wuxuuna soo dhigay sawirkan iyo fariintan hoos idinkaga muuqata uu ku sheegayo in Ilhaan Cumar ay ka codsatay codsi. sidaad muuqaalka sawirada hoos idinkaga muuqata aad ku wada aragtaan waa Yuusuf Garaad oo shaaciyay arooska ay dhiganayso Ilhaan Cumar iyo seegeeda Ameerikaanka ah. mudane Yuusuf Garaad oo bartiisa Facebook ku soo bandhigay in mar dhow xafladda arooska Ilhaan Cumar iyo ninkeeda ay ka dhici doonto dalka Mareykanka, waxaana la wada sugayaa qaabka uu u dhici doono iyo waqtiga saxda ah ee uu dhici doono arooska Ilhaan Cumar, maadaama hadda ay faraanti gelis iyo meher ay samaysteen. Yuusuf Garaad oo ka qayb geli doona xafladda arooska Ilhaan Cumar iyo ninkeeda cusub oo maalmo ka hor meherka faraanti geliskoodu dhacay, haddana la filayo xafladda munaasabadda habeenka arooskooda oo la wada sugayo oo diyaar garow xooganna loogu jiro. Yuusuf Garaad oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in Ilhaan Cumar ay ka codsatay inuu arooskeeda daadihiye ka noqdo. qoraalka uu soo qoray ayaa u qornaa sida tan: finally waxaan aqbalay codsi iga yimid Ilhaan Cumar oo iga codsatay inaan daadihiye ama xiriiriye ka noqdo xafladda arooskeeda oo dhici doonta dhamaadka bishaan soo socota. sidaas waxaa yiri siyaasi ahna wariye rugcada ah Yuusuf Garaad. xafladan aroos ay dhiga rabto Ilhaan Cumar ayaa warar aan helayno waxa ay sheegayaan in ay noqon doonto xafladii ugu shidmeed ee gabar Soomaali ah ay dhigato. waad ku maasantahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawaday. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janalkan, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe saarato furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid. بربركوركو هشيسا بلانتي كدبايسي